salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey guud ahaan soomaalida iyo sidoo kale caalamka. qodobada aad wararkeenu ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee wakhtigiisa uu dhammaaday xasan sheekh maxamuud oo qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah maamulka puntland islamarkaana si weyn uga cariisisay maamulka puntland iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo maanta si adag uga jawaabay islamarkaana ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhanaa madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday xasan sheekh maxamuud iyo dowladda federaalk soomaaliya. haddaba maxay tahay tallaabada ay qaaday dowladda federaalk iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee puntland sida weyn ugu cariisisay? faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa. dhinaca kale inta tobintan aynu ku guda jirno waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa puntland oo gudaheeda durbe ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo culus iyo faragelinta dowladda federaalk oo si weyn loogu dareemayo. qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa inta tobintan aynu ku guda jirno guud ahaan xaaladda puntland, faragelinta dowladda federaalk soomaaliya iyo mowqifka madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo maanta si adag markaasi u shaaciyey. hadday tahay booqashadaadii ugu horreysay ee kaalmoy media nagu soo biir calaamadda subscribe-ka noo taabo oo ka mid noqo saaxiibada aynu mar kasta halkan kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan soomaalida iyo caalamka. haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. ka qayb qaada faafinta muuqaalkan oo like saar. lagtu waxay ka qayb qaadanaysaa in warbixinta dad badan ay gaarto. hagaaga aynu ku bilowno marka hore dowladda federaalk soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu eedeynayay in maamulka puntland deegaanadiisa ay ka wada faragelin military ayaa ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xulafadiisa kasoo jeeda deegaanada puntland ee mucaaradka ku ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni waxaa saacadihii ugu dambeeyey ay faafiyeen sawir ay si wada jira uga muuqdaan taliyaha ciidanka danab ee fadhigoodu yahay garowe ninka lagu magacaabo jimcaali iyo siyaasiyiin kale oo reer puntland uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ninka lagu magacaabo cali xoosh iyo sidoo kale xasan shire abgaal oo si weyn markaasi siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyadoo uu dhinac taagnaa sawirkan uu ka muuqday madaxweynaha maamulka waqooyi bari soomaaliya cabdiqaadir axmed aw cali firdhiye. haddaba sawirkan markii uu soo baxay kadib waxaa dowladda federaalk soomaaliya ay faafisay warqad soo baxday 13 bishan juun taasoo la sheegay in lagu magacaabay taliyaha guutada ah markaasi 54 ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada garowe iyada oo ay hoos imaan doonaan sidoo kalena ay markaasi ka hoos shaqayn doonaan ururo markaasi ku kala sugan magaalooyinka gaalkacyo, garowe iyo sidoo kale boosaaso. dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si weyn markaasi loogu eedeynayay in deegaanada puntland ay ka wado faragelin military iyo sidoo kale qorashada ciidamo daacad waa dowladda federaalk kana soo horjeedo maamulka puntland uu hogaamiyey siciid cabdulaahi deni. madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa nin si weyn dowladda ugu eedeynayo in puntland ay doonayso inay markaasi burburiso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana taas markaas si daahfuran u shaac qaaday ficilka ay dowladdu ku dhaqaaqday muddo kadib tanii markii la aasaasay jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya. waxaa markii ugu horreysay madaxweyne jooga villa soomaaliya uu magacaabay taliye hogaamin doona ururka 54 ee fadhigoodu uu yahay garowe iyada oo taliskaasi ay hoos imaan doonaan taliye qaybeedya ku kala sugan magaalooyinka garowe, boosaaso iyo sidoo kale ee gaalkacyo. jimcaale takar ayaa loo magacaabay taliyaha ururka 54 ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland iyadoo sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyey ay jireen ciidamo dhinaca dowladda federaalk soomaaliya ka soo jeestay kuwaasoo ku kala sugnaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka puntland sida degmada ayl iyo deegaano kale oo maamulka puntland. haddaba tallaabadan waxaa si weyn uga caruuday madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni uu maanta ka hor hadlayay khudbadna ka horjeediyey baarlamaanka puntland ayaa dowladda federaalk soomaaliya si weyn ugu eedeeyay faragelin iyo sidoo kale in ay ku